magaalada Toronto ee dalka Canada waxaa berri si rasmi ah uga furmaya tartanka ciyaaraha Somali Week oo ah munaasabad sanadle ah oo isku keenta dhalinyarada Soomaaliyeed, ciyaartoydii hore iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. Tartanka waxaa soo qaban qaabiya ururka Today. Ciyaaraha waxay socon doonaan inta u dhaxaysa 24 July ilaa 2 August, waxaana lagu qaban doonaa garoonka Rob Ford Stadium ee adreeskiisu yahay 56 Centennial Park Road. Ujeedada ugu weyn ee tartankan ayaa ah in dhalinyarada lagu dhiirigeliyo ciyaaraha iyo isdhexgalka bulshada si looga fogeeyo waxyaabaha halista ku ah mustaqbalkooda, isla markaana loo xoojiyo midnimada iyo wadajirka bulshada Soomaaliyeed ee qurba joogta. Tartanka waxaa ka qayb galaya kooxo ka kala socda Canada, Mareykanka iyo dalal kala duwan oo Yuruba, kuwaas oo ku tartami doona ciyaaro kala duwan iyadoo la filayo inay soo jiitaan kumanaan taageerayaal. dhinaca kale waxaa barbar socda tartanka ciyaartoydii hore oo ay ku kulmayaan halyeeyadii kubadda cagta Soomaaliyeed. Tartankan ayaa fursad u noqonaya inay dib u soo nooleeyaan xusuustoodii waayihii ay ku tartami jireen naadiyadii caanka ahaa ee Soomaaliya, isla markaana ay la wadaagaan jiilka cusub waayo-aragnimadooda. Munaasabadda kuma koobna oo kaliya ciyaaraha, balse waxaa sidoo kale lagu soo bandhigi doonaa barnaamijyo madadaalo ah iyadoo ay ka qayb qaadan doonaan fanaaniin Soomaaliyeed oo caan ah, kuwaas oo madadaalin doona ka qaybgalayaasha iyo taageerayaashooda. Waxaa la filayaa in Somali Week ee Toronto uu noqdo munaasabad kor u qaada isdhexgalka bulshada, dhiirigelisa ciyaaraha, isla markaana xoojisa xiriirka ka dhexeeya Soomaalida ku nool waqooyiga Ameerika iyo Yurub iyo guud ahaan qurba joogta. Xuseen Nur Xaaji, Toronto.